السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنا قرأت السؤال شلون أكسن وMCO إذا كلا سو هالله ويب سايت duxi.com وحنا فيديو وين أول الله جالن جيجي سجاشن كمال مود أها أو نسوق جوي محنو هيرجلي محاسة إن شاء الله نقب سومي وعي جالن جيسك سو مري سوكل فرصة ده مش كفران إن جالن جنوعان أو كلام مركلا عن قبنا يوحنا نعصرنا كهلنا سو aad u faraxsanahay in challenge as sinawad alxamdulillah uu soo dhamaaday iyo dhammaan teamka kale ka soo qayb galayay walow gadaala ka sheegi doona teamka intooda badan ay sabiixdeen akhyaarta ka soo qayb gashay Discord-ka 99% yaa dhihi karaa ma aysan dhameeynin challenge-ga dad yar fara ku tirsan dhameeyay aad iyo aad ugu mahadcelinaa dadkaas ayagana waa idin la wadaagi doonaa so yeah, and how to see good barnaamijka. I'm super excited ina idin la wadaago arrinkan. Let's go ahead and get started. So challenge-gan waxa uu bilowday bishii October. Muhiimadda ugu weyn oo loo bilaabay waxay ahayd challenge-gan sida public ah in October aan ka soo bilaabay. Laakiin challenge-gan wuxuu ii bilowday bishii February 2025. So habeenada kamid ah anigoo asxaabta magaalada isla joogno banooni ciyaareyno kubadda leelay. So kubadii anigoo ciyaareyno yar asxaabta kamid ah banooniga aan ciyaareyna teleefankeyga u dhiibay soo marka wuxuu sameynayay recording oo naga sameynayay videogi and banooniga qaabka uu ciyaareyna iyo recording oo uu sameynayo at that time si gaar ah waxa waay videoyo badan oo iga duubay aniga maadaama teleefankeyga uu hayay marka ciyaarta ay dhamaatay wuxuu dhahay warniyow MCO san xaaladaada ma sii ahaanayso which means aad u culusaatay بلون مركا هشيت سيدا وحا أردوسا ركها أو كالي ساسان حالتكم معه فيديو قادي بقول لابتي honestly فيديو قاس مكا داودي أو هبين قاس أن واريلاس قرينا إن فاد بدنو يوجر جركيغا لكن فيديو قاس مكا داودي أصحابتي إلا هادو حسوستا سيدا حتى أقيليناي ميل شاح لق عباي ميلاه سي مرناي هبين كده وحاكو العليناي سida ima anfacaysa in wax ka bedelo waajirkeyga sidaan habarteeda ka tahay waa dareemaa in anigoo dhan kala badbatay soo calool xoogana ii soo baxday jir kale adiga you name it habeenkaas waxay ka dambeeyay go'aan waxaan qaatay marka in aan bal xaalad sidaan wax ka bedelo soo sida waxaan ku ogtahay bini'aadanka xamaasad isla markii xamaasada ku qabanayso waxaan saasa inaad samaysid waay so المهم ويكي isla markii waxaan bilaabay in diet bilaabo so diet kiya waday so I think 2 weeks 3 weeks oo malayna I think 21 days I think 21 days waday so muhiimadu waxay ahayd 21 days walba in hal week aan asto oo 21 days kala aasi wado so hor 21 days ugu horeeyay waa sameeyay oo waxyaalaha sukarta iron raashinka inta badan waxyaalahaas dhan waa xaliyay 21 days marka weegi break qaatay ee baash ila baxda hadana so weegas break iska qaatay sa u baxadana waa ilaaway hoola kala iska galay ma soo xasuusanin soo hadana mar kale hadana bishii lixaad oo kala umalayna hadana mar kale soo nabtaaday orno waxa dhahay baash waa sii tagtay another 21 days kala aan qaban so 21 days kala qabtay 21 kaas waa ka baxay hadana weegi kadib 10 kamaan baranin oo waxa la rabay in aan joojiyo oo dib u soo celiyo soo arinkiina ma dhacin soo sidii ku soo socotay ilaa challenge-gan hadda aan bilownay oo bishii October oo ay ahayd in ugu dambeynta oo kadaan meesha 21 maalmood aan ka dhigay 9 maalmood okay so 9 maalmood ayaa go'aansaday waliba inaan ka dhigo public so waxaan meeshan ka salaama coach Sabri oo runtii aad iga support gareeyay starting point-kiga koowaad oo siiyay jadwal awal waxa ani almiita buligay waa sameynaa to be honest gym-ka 4 sano la soo dhaafay ma baaji jirin weegi ugu yaraan marka ma aadin aado 4 maalin aadi jiray laakiin qorshe ma lahayn waska almiiteenay tag bal caafimaad ku celi ayaga heed marka waxaan go'aansaday inaan qorshe sameysto in cuntada naftirkeeda aan qorsheeyo iyo sidoo kale almiitada la aada naftirkeeda in waqti loo sameeyo all the stuff in iska orod ahayn iska socaysan ahayn so coach Sabri aad u salaama oo runtii qofka daneynay in uu waxyaalahaas ka faa'iideyna dhankan cunooyinka waxaas ka saxo oo la xiriir kara YouTube-kiisa soo dhigay YouTube iyo TikTok intaba so ninkaas marka isfahanay oo baranay la xiriiray so uu iga support gareeyay starting point fiican oo si
wixii ka dambeeyay waxaan marka fahmay sida waxaas u shaqeeyaan qorshayaashaas sida u shaqeeyaan so wixii ka dambeeyay dhan ChatGPT isticmaalay insha Allah video gaar ah ka sameyn doona sida ChatGPT u isticmaalay so ChatGPT AI-gaas wuxuu iga support garay anything marka meel yar hadaa galo wax cunaayo waa weydiina sawir u diraa warniyo waxay ka war meeqa macronutrients ku jiro meeqa carbohydrate meeqa fat meeqa protein waxyaalahaas dhan macnaha inta badan database xoogan u haya 90% waa accurate way calories waxa uu ku sheegay marka runtii asaa aad u isticmaalay especially labada bil ugu dambeysay marar badan waxaa dhacday oo talooyin iyo wax ku ool ah oo ishiyay oo runtii aniga aan la'aantiis ay adkaa lahayd in aan stepkan soo gaaro so wax yar aan ku daalinay 9 maalmood alxamdulillah si complete ah ayaa u soo dhameystiray gymka waa laazimay sidoo kale energy-gayga high oo noqday shaqadeeda ma sha Allah double ay noqotay waxaan maleynaa 3 bil la soo dhaafay oo shaqeeyay ma xasuusta xilliga u shaqeeyay energy iyo wax walba waxay ahaayeen perfect yani alxamdulillah ilaaha aad mahadsan oo runtii igu sii daayay in caafimaad asii lahaado oo sii socdo ilaahay waafajiy so waxyaalo badan waxaan ka bartay fitness industry-ga awal waxyaalo badan ma aan ogeyn just regular waxaas ka ahaa dude laakiin markii ugu dambeysay waxaa fahmay sida fitness industry-ga u shaqeeyaan sida waxyaalahan oo calories kan iyo sida loo qiimeeyo carbohydrate-ka hebelka fat sida loo qiimeeyo waxyaalahaas oo dhan proteins oo qiimeynaysa sokorta oo qiimeynaysa waxyaalahaas oo dhan in wax measurement la sameeyo awal qof markuu idhaahaba measurement ina sameeyay waxaan ninka maxaa ka khaldan cunno walba ma xisaabi karaa waxaas waa adag tahay 9 maalmood la soo dhaafay waxa ku qasbanaaday anything aan cunay ina measure sameeyo so waa ku qasbanaaday because hadaad result rabtid waa ina la socotaa waxa aad afkaaga galayo waa ina la socotaa sidoo kale calories aad bixinayso sidoo kale marka aad sameynayso naftirkeeda ina ku xisaabtantid waa meeqa calorie maanta gubtay so ina fahmi kartid maxaa bixisay maxaa ku soo galay kadibna deficit-ka markaas meeshaas aad ka qiimeyso runtii 9 maalmood waxaan lumiyay 10 kiilo wax ka badan aan lumiyay marka challenge-ga bilaabeynay 9 maalmood waxa ahaa 83.7 ahaa hadda oo video-ga aan duubay waxa ahay 73.4 which means 10 kg way macnaha 10 kg 10.3 something like that way which is super nice haddii aad dareentay videogaas aan duubayay xilligaas iyo hadda farqi xooggan u dhexeeya especially wajigayga hadaa fiiriso wajigayga faada saarnaa jiray dhinacyadan hadaa fiiriso hadda laakiin xogaar wuu qormay waxyaalo kale soo weydiinaysa waxa macalin six pack ma yeeshid no six pack ma iso bixin laakiin aad ugu dhawaa hadda wax igu daran waxa waaye qaybta hoose caloosha qaybta hoose beeliga meesha la dhaho aan weli faad iga jiraa laakiin qaybtan kore waa sarxan tahay sidoo kale aad ay u adkaatay caloosha awal waxa dhici jirtay marka wax cun isla markii caloosha isu bixi jirtay hadda laakiin marka wax cun hata even caloosha maadaama ay adag tahay oo hadda aad ay u adag tahay ma sha Allah marka wax cun ma soo bixayso meeshaday taagnaanaysa which means adeeg oo macquul ayaa ka soo horeeyay awal ayada kaligeeda iska ahayd biyaha taa caba hataa waxa waaye oo iska soo bixi jirtay marka hadda aaday ma sha Allah ay u adag tahay six pack ma soo baxay may laakiin flexing oo kala sameeyay soo la iska la jiido oo kale waxa arkaa in calaamadihii oo ugu yaraan 2 xab kor ayaa arkaa which is really nice kuwan hoosan insha Allah fatkaas oo beeliga ku jiro waa meel tigareen doona maadaama maalin si dambeys asi fahmay qorshaha iyo waxyaalo noocaas so intaas waxay ahayd marka background story ahead 9 maalmood maxaan sameeyay marka maxaa ku guuleystay maxaa dib igu ahaa horta waxa u baahan tahay inaad sacrifice sameysid badanaa dadka oo talooyinka bixi waxay ku leeyihiin ina isgaajisid ma loo baahna ina isdishid ma loo baahna something like that waa sax arinkaas laakiin waa ina gaajata qasab waa hadaad gaajooninin sidee wax ku gubay sidee miisaankan jirkaaga ku jiro u dhimaysaa ma dhimi kartid waxa u baahan tahay marka gaajada marka waxa la diidan yahay mid oo routine ak dhiganaysid oo maalin waxa cunay galabkii maalin waxa bari oo kale waxa cunay subaxii waxa cunay bari macnaha waxaan ku toosanay marka qaar gaajo waxa isku dilaysaa maala yacni aan jadwaleysnayn laakiin gaajo aad og tahay in adiga ay ku qabanayso waa ku xisaabtami kartaa tusaale waxa sameyn kartaa habeenkii intaadan seexanin oo kale 3 saac ka hor talooyinka ugu fiican oo la bixiyo kamid tahay in 3 saac ka hor aad wax sii cunto which means habeenkii markaa seexanaysid calooshaada ayadoo firaaqa seexanay
empty way marka inta aad jiiftid faadka laga jaraayo waxa noocaas calooshaada la isticmaalayo waxa laga isticmaal doonaa keedka laakiin calooshaadu buuxdo markaas yaxtid ama calooshaada buuxdo hadhoodii keedka loo baahnaanayo inta wax u yaalaaba ileen qaabka jirka dhan u shaqeeyo waxa waaye cunooyinka keedsan iyo cunada hadda taagan loo kala qaybinaa soo marka si processka loo sameeyo haddii adoo dhargan aad seexatid cuntadaas aaba taalaba meesha ma loo gudbaayaba qaybta oo maxaa ku dhahaa faadka oo keedsanay looma gudbaa marka si faadka keedsan loo gudbo oo u gubtid arrinkaas waxaan qasbantahay marka inaa habeenkii 3 saac ka hor oo kale haddii habeenkii 10 aad seexanaysid ama 4 saac habeenimada aad seexanaysid 6 oo kale iska jooji wax cunist soo 6 saac 10 waxaa gaaraysaa adoo calooshaada macquul ee tahay weliba haddii xilligaas aad socod kusii darsan karto okay ani waxyaalaha aasiima waxaa ka mid ah 6 ama ugu dambeyn haddaa ordo 7 aan jooji jiray wax cunista kadib 9 ama 10 waxa bilaabi jiray socda bilaabi jiray marka ugu yaraan waxaan soo soconaa 10,000 step ayaa soo soconaa 10,000 step maxaa dhacaysa marka calooshaydu gaajeysana soconaa markaas socdo maxaa dhacayso fuulka ama shidaalka la isticmaalayo waxa laga isticmaali doonaa keedkayga laga isticmaali doonaa ila sababtoo calooshaydu wax kuma jiraan oo hadda awood oo maadaama socodka uu awood rabo energy uu rabo energy-gayga waxa laga qaadanayay keedkayga laga qaadanayay waa dareemay marka in calooshaada shaqo ay ka socoto waa dareemay in aad tabartaada iyo waxa la dhan la isticmaalayo soo waxa gaaraysa heer aad socoweys sometimes aad u daashid markaas camal waxa lagu leeyahay waxa cuninba xilligaas camal waa xilliga ugu big time ka waayo which means xilliga ugu fiican oo melting la sameeyay waayo maxaa lagu leeyahay marka hadaa wax cunaysid khudaar oo kale ama hadii way kasi fiicanta in biyo cabti seexatid soo hameena badan sameeyay arrinkaas in biyo iska caaw aasax subaxii maxaa dareemay calooshaada falaaday noqonaysaa waxaa dareemaysaa aad dhan in energy oo kugu soo kordhay inkastoo tabar la'aan iyo waxyaalo noocaas arkaysa marka gymka aad tagtid because jirkaaga waxyaalaha aad cunti iyo diet kan way ku xiran tahay inta protein aad cunaysa iyo waxyaalo noocaas so the more marka oo jirkaaga uu la qabsado arrinkaas the more aad awoodaada ay fiicnaanayso energy-gaaga uu fiicnaanayo all that stuff marka socodkaas muhiim waaye iyo sidoo kale cuntadaas oo habeenkii adoo gaajeysan aad seexanaysid gaajo kuma dhahayo oo waali aad la dhimanaysa la seexan ku dhahay so 6 hadaa joojiso almost 4 saac lee waay ileen ramadaankii waxa la soomaa 12 saac 14 saac la soomaa intaas waa soontaa hadda habeenkii waaba jiiftaaba inta jiiftid iska soo naw awal waa sooneed okay so marka 4 saac ka hormari subaxiina marka soo kacid ugu yaraan 2 saac ama 3 saac oo kale sug inta badan waxa sameynaa subaxii gymka galayba anoo gaajeysan xalayna anoo gaajeysan subaxiina gaajadaas ku tagaa waa soo wada gubaa mar walba waxa isticmaalaa marka aniga isticmaalayay waxa ku dadaalayay in keedkayga isticmaalo in raashinka markaas calooshada ku jira aan isticmaalin soo arrinkaas marka aad ii support gareysay waxaana ay sababtay in 3 bilood aan ku dhimo 10 kg runtii aad iyo aad ugu mahadsantiin in asxaabta ila socotay so Instagram-ka inta badan ku soo share gareynaa inkastoo bishii ugu dambeysay aad u jiif for some reason I don't know even حتى because Instagram كو مشغولي حوار وقتي إيه قادرة so تلفون كده ka tiray waxaan isticmaalay webka ama computerka so computerka ma aragtay lagu baraxaysa karo waa hore boring ka dareemay waa ka soo baxaysa bis marka wax aan sameeyay marka waa iska tiray update daily aso dhigi jiray waa iska dhaaf laakiin hadda mid general ah oo waxaan soo gali doonaa ku saabsan arrinkaas dhanka shaqada runtii saawadan ku sheegay energy-geyga wax walba quality-giisa everything nadiif ahaayeen waxaa duubay in ka badan 50 saacadood oo 10 ah duubay intii aan challenge ku jirnay videos badan waa duubay YouTube ka soo gelin jiray waa aragteen 10 dheer diyaariyay so really waxaan dhihi karaa waa bilihii ugu wanaagsanaa dugsiga 10 waxaan soo gelinay oo ugu dheer abid so xilliga ma duubin laakiin in la isku keeno 10daas la edit gareeyo la isku beego la soo upload gareeyo time xooggan ay qaadanayso sometimes 3 days 4 days sometimes 10 qaadad course active oo kale week iska dab wareeg ah ku jirnay oo in la soo upload gareeyo runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay stepkan iyo waxaan sameeyay so qof walba oo recommend gareena nin walba wuxuu dhahaa new year new me hadda already waa lagu jiraa sanadka 2026 waa bilowday so adiga kugu xiran tahay challenge public ka dhig ama adiga nafsadaada wax markaas aad leedahay ka gaar so waxyaalaha ku support gareynaya marka hadlayna so haddii aad rabto in aad hadaf gaarto markood meesha u socoto inaad taqaanid waa so meesha u socoto hadaadan aqoonin de maxaa gaaraysaa hadafkii ujeedada aad leedahay maxaa
وأنا هدف لا سؤال إن ليه كرتيد ويجان وأنا 1 kg أدمه ويجان وأنا 2 kg أدمه بشان وأنا 4 kg كده ماذا سو أرنجاس وحكي سهل مركا سكيلكا ولا صعتها محا ميقا مري ميقا سكودي من سو مرة بهدف كاس أو صعتيد واسي سعني استابس كهبينكي أسعنيس أمالك أسعنيس أيضا سيدو كله ساسا كحساب سنة مرقف والبو ودنيناي إنه هدف جار نوعروها هذا جرسها هذا وحبرشها هذا شخاها هاتو هدف كذكس هدف كاس مركي أكتها ماشى أسعتيد ويفضل ده سيدا كو جارتيد لكن وحكا كلو كهر معنا إنكم علي كران إليه وأكتها ماشى أسعتيد لكن هذا أوجين ماشى أسعتيد وحول بوضد كهر ما هذا وكو خبصرايان وحول بوضد كهر ما هذا وكو علينايان وهذه وحالة متى بيو ميل سيسعد بياس ده وح علي له له وجوك سنايان أوكي لكن هذا جو على هاي أو استريد أديس ميل هبلا أسعد إلا ماشي كجارنا وحكى لو كإما كهر ما هذا نوع حواي ماشي أرتما وكسي سعرسا مركلونتي سدحدان بالهدف كاس إيدك سنة إنتين كي جيجاس أدمو هذا إيه سبورت كراسي بكاس مرول بو أشكو دايو إنان إن دايت إن جوجيو أما مرة بدنا جوجيز وقيبت أو لوزينز كان قدرينا وحاسو سنة هدف على هذا هدف كاي إلا كجاريسيد خمس كراني هاسكو أحسايا عيارين مرور مرايدا استاغو وحاركا إنا بروغرس سمينويو وحان اسكو قنعينا مرك إنا صبرو أو بل إنت هدفكيك كجاري which is really cool وحارو مركا إنا كهالو محا إيهير قليوة وحيالها أدكا أو إسومر محي أهايين أو هذه 10 يكون غاكرتو أما قفول بو مركاس هدف له عقوضة لا معقول ما يعني نيجرك الدنيا وحال عدي حدا waxaan sheegay in aan socod jiray anoo gaajaysan oo si aan u isticmaalo keydkayga u isticmaalo aan u isticmaalo wax caloosheeda ku jiro soo markaas socod ka soo dhamaado waxaan imaanayay anigoo socol sometimes aad u daalan nafsadu waxay ii sheegaysaa marka inaaniyo iska kifaax inaan wax iska cuno maqaayad soo maro بيزي أو كل إسكت دلبضو أما باشان دروم تلي أنت ماشان وضعك عجوج تركيا دروم بالله عادو استعمالها سي ومع ذا هاي حلي قاس وحدريمي درير والي مركز سو حسوستيت اسم مركي هذا سو حسوسنو إنا وحبها أنت مقايد هورتي دا أمرتي أكشيد لي دور هبين وحاد عادي إن أنا أنصدي إن عنو إن قالو الباب إسكسو لاوناي sometimes meelaha kafeega oo kale waxaa jiro bahalo doolshooyin iyo cakes oo aad u macaan badan oo aad jeclahay oo yaalaan sometimes inta galo meesha aa soo fiirina waxaa dhahaa yes arrinka ma soconays waa iska soo laawo jiri anoo willpowerkayga isticmaalayo marka dhowr habeen waa ku dhacay midin dhahay inta habeen oo aan guuleystay ama inta habeen oo aan sameeyay wal habeen qaar waxaa dhicisay horta maalmihii koowaad guilty dareemay xataa even sometimes marka aan guriga aan wax ku sameeysanin oo maqaayad wax ka soo cuno aanoo guilty dareemayo oo is canaananayo ka soo bixi jiray marka dambe waxaan dhahay niyo guilty maxaa ku geliyay nafsadu way kula shaqeynaysaa sax way ku sabraysaa dii halka isbuuci ma halka mar ka farxi soo sameey maqaayad wax ka soo cun ama biis soo cun ama macmacaan ka soo cun dii nolosha waa sidaas واسكو قنعي marka dambe giltinimada ma dareemeenin isbuuci maraan baxay habeenkii noqoto habeenkaas aan marada soo ceshanay madaxa soo furana anoo faraxsan oo gilti dareemeenin bigas waxa isku qanciyay gilta dareemin sababtoo ah hada gilti dareentid nasada stress badan isku sii furay maxaa soo sanaysay maanta su'aal canaan xanaaq lamaro waxa marka go'aansaday mar online kan waa ka arkay arrimahaas dad badan oo sheegayo dadka waxay la cheat day dhahan an cheat day ma dhihin ba magaca waxaan u bixiyay maalintaas naftada iska leh maadaama ay sabrayso waqti ay kula qaadanayso habeenkaas oo kala kicin oo soo kala kicinahay jawiyan soo kalay minima haystay alxamdulillah marka halkaas maalin marka nafsada oo aan sabarsiyo dhahay waxa artu ku sii lixda maalin ma soo gali kartid mar walba marka ay wax soo damacdo ushwa ku dhufanay isceli aan dhahay isceli marka runtii waxa u baahan tahay sacrifice inaad sameysid si aad goolkaaga u gaartid aad iyo aad waxa waa runtii aan 10 badan ugu bartay oo aan idin sheegay marka waxyaalaha waxa jira willpower waxa la lahayo oo ah inaad controlsho rabitaankaaga basically waxyaalaha aad ku guuleysan kartaa waxa kamid ah inaad horta iska dheereysid
waxyaalaha ku keenayo in aa wax ku dhaqaaqdo tusaale hadaa iska ilaalinayso macmacaan oo guriga soo dhigata ka waran xilli habeena la gaaraa oo adiga aad cravingkaaga u kacaayo oo inaa waxa cuntid lee jirto aadan ka joogi karin soo haddaad soo dhaweysatid guriga soo dhigatid ama fridge oo kugu jiro ma iska celi kartid horteeda ka tahay laakiin markay ay noqoto inaad banaanka aadid aa soo gadid wixii marka koowaad dee inta aad kacaysid isdiyaarinaysid banaanka aadaysid soo laawanaysid su-aalo badan aa isweydiinaya mis hilmaamsiin kartid laakiin marka agtaada u yaalo is hilmaamsiinaya halkaas daqiiq soo qabo oo ku tuuree kadib aa wada hadal noo dambeeyaa leedahay hadda horta aan ka dhammaado baalkan marka waxyaalaha willpowerka ku fiican yahay waxaa waaye inaad horta ku iska dheeraysidba waxa sababaayo in willpowerka aadan isticmaalin especially habeenkii way adagta inaad willpower isticmaashid subaxii waa laga yaabaa inaad motivation iyo wax la soo kacdid laakiin habeenkii markay gaarto especially adina aa gaajaysan tahay willpower ma shaqeynayo aaday u adag tahay aniga saa idin sheegay dhowr habeenaan kasoo laabtay dhowr habeen kamid ahna waa kasoo laawi waayay because aaday u adag tahay inaad willpowerkaaga maamusho habeenada kale marka waxaa sameynaya meelsha maqaayadaha maba maraayiba meelaha aniga oo igu sababaayo tusaale markaa aragtid kugu soo dhaceysaba waa ka leexanaya wadooyin kale aan u badashti sababtoo haddaa aragtid waa soo xasuusanaya wixii yaartaa marka waa iska boqojeynaya adoo koob kasta leerabi itaaba leerabi haddaa isku sii ganti ka waran horaa ugu sii dhexsaa marka aqaanay videoga aad u dheereeyay intaas ku soo gabagabeyn doonaa waxaa ma sha Allah noo hagaagay barnaamijka mentorship almost waa dan hal course hadda dhex maroos oo dhamaad ah soo course React Native waaye 50% already waa diyaariyay 50 kala dhiman almost 10 January koor waa dhameyn doonaa miisaankan alxamdulillah saasay ku dhacday ma jooji doonaa may waa sii wadi doonaa waxaan rabaa belly fatkan oo caloosha qaybta hoos ku jiro especially qaybahan calool ma waxaan finaanada waay soo caloosha mid tusi kari weird waay laakiin waa dareemi kartiin jir ahaan iyo shape ahaan in isbedel xoogan oo jirkeyga ku jiro marka aad u mahadsantihiin waxaan rajeynayaa qof walba insha Allah inuu guushiisa iyo wixiisa gaaro waxaan rabaa inaan shout out gooni ah u sameeyo asxaabta Discord ka dhameystay Cabdullaahi Ciise kamid ah aqyaarta Faarax iyo dhammaan aqyaartii hada magacadooda aan kor ka xasuusan karin oo runtii ila dhameystay programka nimankaas niman legends ah waay 9 maalmood soo wadeen aad u mahadsan yihiin sidoo kale aqyaartii ay u suuragali weysay please nafsadaada xisaabteeda ku laabo why ay kugu suuragali weysay hadda ka faa'iideyso inaad dib ugu celiso arrinkaas aad ma santiin assalamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh